ayaa Abwaan Ismaaciil aan ku salaamayna marka hore marka xigta waxaan ka rabnaa inaad noo mariso gabaygii ahaa dulmar oo hadaadagin gabaygii ahaa dulmar oo hadaadagin wuxuu ahaa xilli muddo dheer dhimka laga joogo marka waxaa jirtay wadanka waxaa ka jirtay shaqo aan la saxanayn sida darteed wixii dhaliil ahaa waan sheegaynaa abwaanintuna waxay sheegaan wixii saxan iyo wixii dhaliil labadaas unba ka hadlaan taas waxay ahayd maska duurka weyn galay isaga ka loo diray doomaha ka baadho ka dhaxdayday lagu yiri dad ma kala jeclaa galo dulmar oo hadaadagin طبعا كيش هذا دود ديده وحقوق دقن كبرتي وهي ما دقوده قدبتين لا دبا سocdo sheeg dulmar oo hadaadagin أنا هي اللي بدباح هي عنها الدنيا ضربت اسكا cunaya adna tacarta dhuuqo tarsoo macaan sheeg ma waxad nin dooriya diric ula timaado dad ka rumaysta dulmar oo hadaadagin dumartaad ka xulatay meher kugu dubnaa dubaaqaaga oo jecel u furun daraadeena deyrta guurso dunyadana wada keen waan ku dilay khayr sheeg ma waxad nin dooriya diric ula timaado dad ka rumaysta dulmar oo hadaadagin ninka roob dabayl iyo duufaan watiya dhaxan ku haleelay dooxay isagoo dardhaday oo daamanka isla dhacay oo dugdugayo soo galay aqal daahiyeyna inuu dalq yiraahdiyo bustal lagu damsiyo dabka uu beedii halageeyo dibaddo dhiga meel duleedka halkaas uu ku dirsan ma waxad nin dooriya diric ula timaado dadku rumaysta dulmar oo hadaadagin ninka daabcad la helay ka dareeri dhiigii ha ku mudina daawada dakharkana ha marinina ha u saarin dabintana urkana iyo dareemina iyadoo taxaar kale oo laga furin daboolkii sura meel dushiisa hadduu aad u daawado uu deynba cudurka 10 daqiiqo ma taymo oo laba jeer ma waxaad nin dooriya diric ula timaado dadku rumaysta dulmar oo hadaadagin haddii meher dubaaleed loo tumo durbaankood dumarka u mashxaradaan raguna u dabaaldego reerku daacad maahe kan qaban ninkii dilay baan marka dhalinyaradii dhimanaysay ayaa qolo walba ay farxad naagaha marka dambe guursanayso ahayay ku aroosi jireen dumaashana xeerkeedu saamuun ahay marka idinka wixii ni qabo ragini laayay dhinac kasta waa ka dhintay ayuu ahay taas marka dulmar oo hadaadagin saas bay ahayd